nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka muslimka ah waxa ku dhacaya waxay tahay waa daal, xanuun, murugo ama yacni dhibaato ama xitaa qodax yar oo ay muddo, laakiin alla subxaana watacaala wuxuu ugu dhimaya waxay tahay waa dembiyadiisa. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maa yusiibu lmuslimi min nasbin walaa wasabin walaa hamin walaa xusnin walaa adaa walaa gam xata shawkatu yushaakuha ilaa kafara allahu biha min qadaayaha. xadiiskani wuxuu muujinaya waxay tahay in haddii maxaa yidhahda dhibaato yar nagu dhacdo sida yacni fakrinimo ama dab kacay ama yacni khasaare kala geystay, yacni in ay sabab u noqon karto in dembiyadin loola dhaafo waa haddii aan sabar yeelano, yacni sabar aan la imaano. sidoo kale alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir. alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay musiibo kastoo idiin gaarta waa waxa ay kasbadeen gacmihiinnu. tusaalo kale haddii dabkacay uu ka dhashay yani tusaalo kale sigaar laga tagay ama yacni koronto aanan xirnayn, taasoo kale yani waxaa dhihi karaa waxay tahay waa waxa ay kasbadeen gacmihiinnu. tani waxaana baraysaa waxay tahay inaan ka fiirsanno falalka, sidoo kale musiibooyinkana inaan u aragno fursad oo allah subxaana watacaala ugu laabanayno markastana loo baahan yahay. sidoo kale waxaa loo baahan yahay inta meel fiirsato yani si xigmadatan oo fikirto oo isweydiiso aniga iyo allah subxaana watacaala xiriirka naga dhexeeya waa sidee, camalka aan samayna waa sidee, cibaadadeedu waa sidee, waa inay yani su-aal dhowr noocaas oo kale isweydiisaa. sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay markuu alla jeclaado addoonkaas wuu imtixaanaa, haddii uu ku sabro wuxuu u doortaa xagga khayrka, haddii uu walaal ku noqdana alla subxaana watacaala wuu xulanayaa yani imtixaankaas haddii uu ku guulaysto oo uu dooranayaa mabruuq. ugu dambayn qofkii musiibo ku dhacdo waxaa isweydiisaa maxaan bartay, maxaan saxaa, maxaase ka toobad keeni karaa. السلام عليكم.